golaha baarlamaanka gudoomiyaha golaha baarlamaanka iyo danjirahaasi dalkaasi iyo danjiraha dalkaasi Spain wararka kale ee dalka hadda ku sii socono qalinleyda Somali Pen oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha islaamka dhaqanka iyo hantida waqfiga ayaa xarunta Salaam Carwo waxa ay ku soo qaban qaabisay bandhiga buugga cusub ee ciwaankiisu yahay barashada dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed ee Djibouti iyo Yemen wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo hantida waqfiga Muumin Xasan Barre ayaa gudoomiyay munaasabadaasi waxaana u joogay gudoomiyaha Somali Pen Ismaaciil Xuseen Tani qoraaga buugga isla markaasina ah gudoomiyaha akademiga AGA Dr. Maxamed Daahir Afrax waxa garadka iyo sidoo kale aqoonyahanada dhinaca dhaqanka abwaanada suxufiyiinta ardayda iyo bulshada rayidka haddaba waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha qalinleyda Somali Pen Ismaaciil Xuseen Tani waxaana uu dhisatay kala dhuxdido wixii maartay intii soo akhriday waqti u heshay inay soo yar akhrido ay wixii su'aal ay ka leeyihiin isla maartay eego la isla qorqodo oo Dr. Afraxna intii uu karo isna hagaag uu macneeyo Dr. Afrax maartay kulli wadad inta waad joogtay Djibouti uu nala joogay inta ay sanadood in waad ogtihiin inta hawlooda uu soo galay waa run oo dad maartay uga soo baxay waxa uu inta badan ku baxsoo baxay Soomaali wuxuuna ku bilaabay Soomaali in Ingiriisna waxa ku qoray in maantana waa taati ugu horeysay Carabida iyada laftigeeduna ay soo gaadhay sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay wasiirka dhaqanka Muumin Xasan Barre waxaana uu dhisatay runtii waa munaasabad aad iyo aad u weyn oo qaaliya wayna adag tahay inaan wixii aan dareemaynay iyo waxa in la yiraahday ambasa ku haboon in lagu soo ururiyo madashan amba muddo gaaban laakiin horta waxaan dul joogsanayaa farxadaan ku faraxsanahay inaan arko walaalkay saaxiibkay muddo dheer aan isla qaanay oo af Soomaali ku qoriyay inaan arko buug af Carabi inuu ku soo saaro waxaan ku sii hadana faraxsanahay buugga af Carabiga oo ka hadlaya dhaqanka Soomaalida iyo af Soomaaliga xaliban akhriyo af Soomaaliga waqti la soo qoray taariikhda iyo dhaqanka ay Soomaalidu lahayd oo ugu tala galay dad kale oo afka Soomaaliga wax ku akhrin inuu cilmigaasi ugu geeyo afkooda ay ku akhrisanayeen oo ah af Carabiga laana waxaan ku naqaanay inuu door weyn ka ciyaaray inuu af Soomaaliga ku qoro taarta aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa walaalkeen Dr. Afrax waxaan leenahay cilmi buug horta wax weeyaan wuxuu xambaarsan yahay aqoonta iskama keena inuu qof bili aadana isku daaliyay fikiray maskaxda sida la sheego soo maroojiyay ku soo ururiyay waxa uu isagu arkay dadka inuu anfacay anu haddaan ahay maanta wasiirka dhaqankana waxa weyn mas'uuliyad kale oo gaar weyn bay saaran kulli inaan sheega uma baahna maan u malayna wadankeenu inuu yeeshay maktabada intee leeg oo daragtaan halkay inta ay leeg tahay 700 oo kun oo buug qaada marka buug ahaan laga hadlayo marka numeriga laga hadlayna 500 oo kun oo buug loo qaadi karta runtii cilmiyaal badan oo kale lagu kaydin karo buugga laftirkiisa iyo waxa la halmaala iyana archive-kii amba kaydkii taariikhdeena iyana meesha yaalo garab yaala horumarkaasi alxamdulillaah rabbil caalamiin u socda waxana la iloobi karin oo iyana dowrkeeda in hadiya jeer aan xasuusanaa Somali Pen iyo Afar Pen Somali Pen waa naga maanta la joogna dowrkeeda waan ognahay hadiya jeer marka waxaan leenahay waan hambalyeynaa buug aad iyo